qodobka saddexaad waxa weeyaan qodob isagana muhiim ah annagoo dhanna muhiim noo ah qofka markuu soo koro waxa loo baahan yahay nafsadiisa inuu si fiican u yaqaano waxa jira aragti la aasaasay 1955 oo laba nin oo professors ah markaas ku yimaaday waxa la yiraahdaa aragtida the Johari window waxay ka sheekeynayaan qofka sidoo isku baran karo nafsadiisa qofka afar dhinac inuu iska fiiriyo ayaa fiican afar qaanadood ay u kala qaybiyeen qaanada koowaad marka waxa la yiraahdaa the open area qaybta furan the open area waxa weeye waxa jira nafsadaada adigana ka taqaanid ka kalena ay ka yaqaanaan wax iska public ah adna waas ogtahay waxa aad tahay dadka kalena way ku ogsooyin waxa aad tahay marka kaasoo kale waxa la sameeyaa wixii lagu sheego oo adiguna isku ogtahay dadka kalena ay ku yaqaanaan ama ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaan feedback waa la qaataa laga ma xanaaqo the open area waxa waaye waxa adigu aad taqaanid dadka kalena ay ka yaqaanaan qaanada labaad waxa weeyaan the blind spot area blind spot waxa weeyaan dadka kale waa waxay arkaan adigu aadan arkin adigu ma taqaanid laakiin dadka kale way yaqaanaan oo ku jeedaan qofka waxa laga yaabaa markaad soo gashid ama sida aad u hadlaysid meetinada markii la yimaado oo kale iyo qof baa isku maleeyay si degan inuu hadlayo laakiin si kulul buu hadlaa isma oga laakiin marka waa blind spot gaariga waxa laga yaabaa markuu kula siman in aadan arki karin ilaa aad fiirsid mooyaan marka dadka saasay ku yihiin muraayad bay ku yihiin dadka marka taasoo kale iyadana waxa la sameeyaa buug iyo qalin baa la soo qaataa waa la qiimeeyaa assessment isku samee is ogow waxaas waxa ka jira marumba ma bemba maxaad ka bedeli kartaa maxaad ka bedeli karin plan spotka marka waxa weeye waxa dadka kale iyagu ay ka yaqaanaan adiga wali aadan iska baran ama adiga wali aadan iska aqoonin wax badan oo noocaas ayaa jira marka qaanada saddexaad marka waxa weeye the hidden area waxa weeye wax adiga kaliya aad taqaanid dadka kale aysan aqoonin waxyaalaha aad ku fakaraysid maskaxda kugu jira gurigaaga waxa aad ku sameeysid yani waxyaalaha adiga goonida ku ah waxyaalahaas oo dhan adiga yaqaana ilaahayna uu ogsoon yahay laakiin dadka kale waxa laga yaabaa inaad ka qarisid ama aad u aragtid wax ceeb ah ama aad u aragtid ma garanaysaa waxyaala dadka kale aysan ku fiicneen saacadan inay ogaadaan marka behaviorkaaga marar qaarkood dabeecadaada waxyaalaha noocaas oo kale oo hidden area-da ah iyadan waxa loo baahan yahay adiga inta dib isku laabatid inaad iska saxdid sababta qofka kale ee yaqaan oo adiga weeyaan qaanada afaraad waxa la dhahaa the unknown area waxa weeyaan wax adigana aadan aqoonin dadka kalena aysan aqoonin balse waxay ku soo baxaan qofka markii la imtixaamo qofka markuu xaalad adag uu galo waxa soo baxayo hibooyinkii Ilaahay uu siiyay qaar kamid ah waxa soo baxaya dabeecadiisa rasmiga ah qaar kamid ah waxa soo baxaya afkaartiisa rasmiga ah qaar kamid ah adigu u fiirso dhalinyaradu ama dadka markay saaxiibo yihiin waxba dhexdooda dhex maraya qofkii wuxuu noqonayaa shakhsiyad kale uu qaadanaya shakhsiyadaas kale waxa laga yaabaa marka hore inaadan ogeyn laakiin maadaama xaalad adag ay imaatay qofkii uu isbedelay marka laakiin markii hore adigana maadan ogeyn isagana muusan ogeyn dadka qaarkood waxaad arkaysaa inay yihiin dad leaders oo markaas waxa waa hibadoodii iyo hogaaminimadoodii baa soo baxaya iyagoo degan bay xaaladii xalinayaan dadka qaarkoodna way cararayaan way baqayaan way cabsanayaan waxa laga yaabaa inaysan xaaladda qaadan karin marka qofkaas waad ka ilaalinaysaa xaalad noocaas oo kale inaad gelisid mar kale afarta qaanadood waa afar qaanadood oo loo baahan yahay qofka inuu isku ogaado gaar ahaan iyo qaasatan qofka markuu ku jiro fieldiga hogaaminta markuu ku jiro waa inuu isku ogaadaa sababta u baahannahay inaan iska ogaano nafsadeena waxa weeyaan waxaa lagu tilmaamaa 79% boqolkiiba 79 leaderka ama hogaamiyaha nafsadiisa markuu is yaqaano in uu ka fiican yahay kana shaqo badan yahay xagga performance-ga wax qabadka
hogaamiyaha kale oo nafsadiisa aan waxba iska aqoon marka waad arki kartaan awood ee leedahay qofka in uu self awareness uu leeyahay nafsadiisa wax badan uu ka yaqaano wax badan uu isku og yahay wacaal iyo ogaasho qofka inuu leeyahay ayaa loo baahan yahay